وسؤال isugu jirta laba su'aalood waxa uu leeyahay saa'ilkan sheekofku hadii uu maalin Ramadaan xaaskiisa u galmoodo iyo hadii uu maalin Ramadaan zina ku dhaco ma isku waajibaad baa laga rabaa mise way kala badsanayaan ninka xaaskiisa u galmooda maalin Ramadaan si hadii uu san awoodin waxyaabaha shariicadu ku waajibisay ma laga cafin karaa iyadoo laga dhuxul qaadanayo ninkii arrinka sameeyay ee nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam uu isagu wax ugu daray haweeneydayse iyadana mawaajibaadkaas baa laga rabaa mise ninka bas ay ciqaab ku tahay horta waa saddex su'aalood laba saddex saaran marka sida yihiin aan kala qaadno su'aasha hore oo ah ninka xaaskiisa u galmooday isagoo sooman maalin Ramadaan iyo ninka isagoo maalin Ramadaan isagoo sooman zinaystay ma isku waajibaad ba xagga kafaarada jawaabtu waxa weeye xagga kafaarada waa isku mid oo mid walba waxa laga rabaa inuu qoor xoreeyo adoon inuu xoreeyo haday suroobi weydo inuu 2 bilood oo isku xigta soomo Ramadaan kadib haddii uu kari waayo inuu quudiyo 60 miskiin waxa kaloo ka dhaxaysa inay soo qaleeyaan maalinkay jabiyeen waxa kaloo ka dhaxayso labadaba loo baahan yahay dambi bay galeen inay toobad keenaan hal meel bay marka ku kala tagayaan dambigay galeen ee la rabo inay ka toobad keenaan baa kala culus mid way ka midaysan yihiin soonkii Ramadaan oo ay galma ku jabiyeen dambigeeda waa isaga mid Sooma laakiin midina waa zinaystay oo waxa inta u dheer dambigii zinada kanina inta lama socoto Sooma sidaas daraadeed kani waa zani oo nusuustii zinada ku soo aroortay iyo aasaamteedii iyo dambigeedii waxeedii baa saaran inta kalena ninkanu la mid yahay xagga kafaarada se isku mid waaye hal kafaaray wada gudanaya qaybta labaad ee su'aasha waxa weeyaan ninkii kafaarada lagu yeeshay hadii uu kari waayo kafaaradu soo saddex ma ahayn saddex kala dambaysay ah waxa la yiri qoor xore ma kari karo 2 bilood oo isku xigta soon ma kari karo 60 miskiin qoodi ma kari karo waxa ma haysto intaaba markuu kari waayo ma faraha laga qaadaya mise waa kafaaradii waxay noqonaysaa deyn korka ka saaran oo xilligu awood helo inuu guda laga rabo labadaas ay culimadu isugu khilaafeen qaar waxay yiraahdeen kafaaradu ka dhici mayse waxay noqoni deyn qoorta ka saaran oo la rabo xilligu xoolo helo inuu guto waana madhabka jumhuur culimadu ay u badan yihiinoo xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaafiiciyada fil adhari indahum iyo riwaaya can imaam ahmed saasay u badan yihiin in ay deyn tahay lagu leeyahay qowlka labaadi waxa weeyaan oo culimadu masalada ka qabaan marba haduu kari waayo xilliga isaga kafaaradii meesha way ka baxaysaa sida soonku meesha uga baxay bay quudinta iyo cuntadiina iyaduna meesha ka baxaysaa waxba lagu ma lahaba laana uu tabar buu waay عاجز تبروايو أود واينا شرعه ما كلفته دليلنا وحاء النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه ننكي حديثك بكوي مذا أرنتني كرد علي مركو كري واي وحكست مركو كري واي النبي صلى الله عليه وسلم السجاب عاوييبا ووحي أهيد مركي ليلي مركي صون ليلي ما بكري كرويد لا بلاد صون بكري كرو وايه واحد سميسا محو اهاي 60 مسكين قودي ومحابن هيستابل oo ku qudiya duu meeshii waxoogaa joogay nabiga waxa loo keenay dambiil timir ku jirto markaasuu yiri waraaway ninkii hadda su'aashay weydiinay waa ay ka rasuulilaahi waxa la yiri timirta qaado ka sadaqayso markaasuu wuxuu yiri ala afqara minni ya rasuulallah oo ma cid aniga iga baahi badan baan ku sadaqaysa fa wallahi
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي إلهي بان كل دارتي مقالة مدينة كما بنولا بيقول قويس كباهي بدن قويس كي يقول marka dambiishan aniga cid iga mudan ma jirto ani reerkayga nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu muusooday oo dhoo la cadeeyay wuxuu yiri way reerkaaga ku sadaqaysa rasuulku sallallahu alayhi wasallam way reerkaaga muusi ninka isaga markii uu wax walba waayay nabigu ma dhihin salawaatu rabbi wasalaam alayhi waa deyn korko ka saaran xilligaad awoodo bixi lama dhihin waa marka labaad ee xoogaagii lagu caawiyay markii uu yiri reerkayga u baahana waxa li reerkaaga siisaa leeyay wax dambana looma sii raacanin sidaas daraadeed halkaas ay arintaas ku egtahay wax deyn oo sii soconaysana ma jirto ay culimada qaar kood mareen waana madhabka xanaabilada iyo qowl kamid aqwaasha shaafiiciyada waxaana dooranaya culimo fara badan sidaasaana xoog badan marka la fiiriyo xagga daliilka daahirka wax weeyaan ninka wax lagu laasimiyo ee deyn qoorta laga saaro daliil khaas ay u baahanta mar hadii nabigu basaari waay adiga maxaad u saari faraha ka qaad taasaad moodaa inay masaladu u xoog badan tahay wasa khilaafiyo way su'aasha qaybteeda saddexaad oo haweeneyda ayada galmada lagu sameeyay iyadoo sooman ayadana kafaara ma laga rabaa mise maya waan kala qaadaynaa iyada waxaan u kala qaadaynaa mukraha iyo mutaawica in la qasbay oo xoog wax lagaga qaatay hadday taas tahay kafaara in lagu yeesho iska badaay soonkeedii bayba wadan kartaa iyo ka jabi maayay culimadu qabaan qaar kamid kafaara meelba iska dhig laana shariicadeena ikraaha iyo qasabku marba hadii ruuxa la qasbo dambi ma leh sooma taasi waa haday mukraha tahay oo ninku uu qasbo xoog wax kaga qaatay xaaladda labaad waa inay mutaawicadu way ogoshahay iyadaaba ogolaatay waxa dhici kartaba inay iyadu hawshu bilowdeen waa iska suuroobi kartaa sooma oo iyadu ninka waa ay faraqaadka ku bilowdeen waa iska dhici kartaa waa mudaawica marka raalibayta marka iyada aba la isku khilaafsan yahay kafaara ma lagu leeyahay mise lagu ma laha halkaas ay culimadu isku khilaafayaan sida saxiixa ah ee xoog badan wax weeyaan inaan waxba lagu lahayn saasa xoog badan inaan iyada wax kafaara lagu lahayn waa madhabka imaam shaafici alayhi rahmatullah ahmed ibn hanbal ba isaguna sida qaba inaan wax kafaara lagu lahayn riwaaya canhu waaye طيب sababtuna waxa weeyaan nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi ninkii xaaskiisa u galmoodeen hada ka soo waramayni arintii markuu nabiga u leeyimid sallallahu alayhi wasallam oo weydiiyay rasuulku isaga umbu kafaara saaray isaga baa la yiri kafaara bixi xaaskiisii lama soo qaadinba ya shariica ma waxba ka qarsoomay marka ma waxba kama qarsoomin laakiin wixii looga aamusay baa looga aamusay mar haddii shariic uu ka aamusay oo kafaara uu san saarin in kafaara la saaro daliil kale u baahan tahay marka waa mas'ala labaad ee asalku waa baraa'atu dhimma asalku waxa weey dadka inaan qoortooda wax la saarin illa bidaliil daliil mas'alada khaas oo cadna ma jiro mas'aladaasina waxay u badan tahay oo u xoog badan tahay sida madhabka imaam shaafici uu yahay weeye inaan haweeneyda galmada ka qayb gashay ama lagu sameeyay inaan ayada kafaara lagu lahayn haday xataa mutaawica tahay masaladaasina dhankaas aad moodaa inay xoog badan tahay wallahu a'lam